waxaan anigu dadka u ballan qaadaya codkaysiinaya inaan ahaado qof ka dhabeeya ballan kastuu qaaday waxaan ku shaqayn doonaa rayga iyo soo jeedimaha shacabkayga waxaan noqon doonaa qof shacabkiisu aanay ku dhimadan inay gaadhaan oo ay wax u sheegaan waxaan noqon doonaa qof ay meel walba ka helaan xafiiska ka helaan wadada ka helaan degmada ka helaan xaafadda ka helaan garoomada dhalinyaradu ku ciyaarsa laga helo qof aan lagu dhib mudan in talada iyo tusaalaha iyo waxa la doonay in loo sheego aan lagu dhib mudan in la gaarsiiyo waxaan noqon doonaa qof anu waxaan noqonayaa people smile haddii aan guuleysto waxaan noqonayaa maayarkii dadka ma noqonayaa dadkan la joogayaa dadkan la xukumayaa dadkan la qurxinayaa dadkan la nidaaminayaa dadkan la beerayaa dadkan la xaadhayaa shaqo kasta oo dawladda hoose qabato ma qabanayno anagu kaligayo waxaan la qabanaa shacabkayga waan wadanaynaa bilow ilaa dhamaad ballantan qaadayana Faysalow way ka duwantay ballantii hore loo qaaday fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu siyaasada waxaan soo galay inaan bedelo fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu waxaan dadkayga tusi doonaa nooca siyaasiga dhabta ah ee isbedelka horseedaya uu yahay ayaan tusi doonaa dadkayga waxaan ka arki doonaa shaqadayda waxay ka arki doonaan halkan ugu tago waxay ka arki doonaan halkan la fadhiisto waxay ku arki doonaan saan shaqada ula qabto waxay ka arki doonaan saan u kaxaystay shacabkayga isida iyaga ayaa qaadaya anigu dadkayga baan haystaa waa laga yaabaa inay ilaa iyo guusha isidaan waa laga yaabaa inay idhigaan dadkaygaan u deynaya laakiin intaan soo urursado xoolo soo amaahdo guryahayga iibiyo dabeetana ummadda cod ka dooni maayo dabeetana markay doortaan intaan hantidooda qaato wixii aan amaahdii iyo guryahaygan xaraashay dib uga iibsan maayo anigu waxaan imanayaa aniga oo aan deynu soo gelin ayaan imanayaa dabeetana waxaan u shaqeynayaa daacadnimo waxaan u shaqeynayaa saacad aan weligood loo shaqeyn waxaan u ilaalinayaa ammaanadooda waxaan u bedelayaa magaaladooda anigu taasaan u taaganay dadkaygana waxaan leeyahay haddaad madax wanaagsan doonaysaan madax wanaagsan waa inaad ku doorataan codkiinuna iib maaha in la caayo shacabka reer Soomaaliland gobta in la caayo maalin walba nin baa lacag sito hebel lacag ma haysataa oo si lagu doorto maxaa lacag ma sidataa si lagu doorto oo waxa xagga sharciga marka loo noqdo dadka codkooda in la iibsado waa sharci darro waa dembi weyn baana shacabkan laga galaya war dadka reer Soomaaliland waa dad goba waa dad qaniya iyagu waa sabool shaqo looma abuurino magaalooyin looma dhisino fursado looma sameeyo dalkoodii looma horumarin laakiin waa dad qaniyo goba marka dad la iibsan karo maaha waxaan ahaa siyaasi madax bannaan oo aragtidiisa siyaasadeed madax bannaan oo aan saddex xisbi midna aan ku jirin laakiin bishii August 4 markii aan go'aansaday inaan noqdo musharax u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa maadaama aan la ogolayn musharax madax bannaan waxaan ku khasbanahay inaan saddex xisbi jira mid kamid ah ku biiro iska dhex sharaxo waan ogahay muddo fara badan baan ka soo jeeday siyaasadda iyo jiritaankooda iyo sida u jiraan laakiin siyaasadda laftigeedaaba ahba in la soo kala horjeedo aragtidu ay kala duwanaato waxa xaqiiqada dad fara badan oo ku jira kulmiye iyo cudiye wadani iyagoo xisbiyada ku jira haddana in badan dhaliilaan aragtiyaha xisbiyada ka dhex jira waa xuquuq qofku iska leeyahay inuu aragti ka duwan aragtida kuwa markaa xisbiga ku jira inuu yeelan karo markii 4 bishii August aan ku dhawaaqay musharax ahay u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa wax xuquuq dastuuriye weeye marka waxaan ku khasbanahay saddex xisbiye jireen mid kamid ah ku biiro wada hadalaan la furay asxaabta qaar waan wada hadalay waanu kulanay waxaan doonayo waanu sheegay xisbina wada hadalkiisa wali noo socda waa soo gabagabeyn doonaa go'aan baan qaadan doonaa xisbi aan raali karnayna waan ku biiri doonaa shacbigana waxaan u sii sheegayaa inay mid ila fahmaan xisbigu qofka ma bedelo qofka ay tahay inuu xisbiga bedelo insha Allah ta'ala wixii aan xisbiyada ku diidanaa markaan ku biiro insha Allah ta'ala waxaan ku dadaali doonaa xisbiyada meelihii aan ku diidanaa inaan wax ka qabto wax ka bedelo misana qabiilka ma qabiiladu marka qabiilka sida xun loo isticmaalo sida saameyn ugu leedahay inuu helo maamul suuban dawlad wanaagsan madax wanaagsan waa aragtidayda waanan ilaa imikana waan aaminsanahay waxaan isleeyahay hanka horta aan silaa waa han qabiil ka weyn musharaxnimada aan u sharaxanay magaalada Hargeysa golaheeda deegaanka marka dambana aan doonayaan maayirkeeda isu sharaxana waxyaalaha aan u taaganahay dadkayga aan la hor imanay waxa weeye ummadda reer Hargeysa inaan mideeyo qof doonayo inuu ummadiisa mideeyana qabiil ma cuskan karo salaan qabiil ma soo fuuli karo marka anigu waan ku khasbanahay ama aan ku helo ama aan ku waaye inaan maadaama hankayga aanu qabiil qaadi karin inaan noqdo qof aad uga durugsan inuu qabiil isku sharaxo anu aragti baan sida riyaan sida
hankayguna uu ka yahay maaragtay han qabiil qaadi karo hargeyso dhamaan rabaa inay hankayga qaado dadaalkeedan la iman doona barnaamijkaygan dadka la hortagi doona hooyo kasta aabba kasta iyo qof kasta oo dhalinyaro ah baan la fadhiisan doonaa barnaamijkan ka iibin doonaa halkan tolaay ka iibin lahaa waan ka baydayaa jidkii ahaa in tolaay kursiga lagu fuulo waxaan u baydayaa in aragti iyo barnaamij iyo riyooyin lagu fuulo kursiga hankana sidaan igu khasbaya inaan wadada maro waan ogahay labada wada inay kala fudud yihiin haddaan maanta tolaay idhaahdo tol wanaagsan baan leeyahay qabiil fiican oo runtii sharaf labaan ka dhashay laakiin hanka aan sida kuma filla marka anigoon ka tegin ixtiraamka anigoon ka soo horjeedin qofku inuu garasho iyo qabiil ka soo jeedinaya shay tahay laakiin riyadana sido riyo uu qabiil qaadi karaya maaha way ka weyn tahay qofkuna sideedaba hadduu han weyn leeyahay hankiisa salaankiisa qabiil hanka salaan uga dhigi karo qabiilka waxaan leeyahay ummadaydu waa inay kortaa 30 sanadood in ka badan ayay qabiilka wax ku soo dooranaysay halkaynu ku naalay qabiilkuna dhigana way aragtaa haddaynu u guurno 30 ka sano 30kii ka horeeyayna iyana halkay qabyaaladii iyo qabiilku dhigtay qarankii dhammaay Soomaaliyeed waynu aragnaa oo ilaa maanta ka soo kaban lahayahay umadahana hadii ilaahay garaadkii garashada wixii noo siiyay inuu qarano waxaynu soo isticmaalay inuu soo tijaabin hadii shaqeyn waayo waa in laga beeraa in qofka siyaasiga uu mar walba jidka fudud ee tolaayir ka doorto jidka adag waa ayaan darway inagu waxa way kartideena ku kalsoonahay waynu dadaali doonaa dadaalkeena waxba la harimayno jidka dheer ee qodxaha badan ee dhagaxaanta badan ee imtixaanka badan ayaan ka doortay jidka dhibta yar ee tolaayida kaasaan maraya haddaan guulaysto ummadaydo dhanba ay guul u soo hoytay haddaan guul daraystana ka iga